وهاك daawadayaal wali waxa daawanaysaan warka caalamka ee telefishinka Ariel oo idin ka imanaya studio dhexaan ku leenahay gudaha magaalada Hargeysa maalintii 10aad waxa sii soconaya mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacaya dalka Mareykanka taasi oo lagaga soo horjeedo dilka ninka madowga ah Mareykan madowga ah ee isniintii la soo dhaafay halkaasi dilka lagu geystay George Floyd haddaba waxa igula sugan studio-ha Professor Ahmed Muuse Ismaaciil oo kamid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha dalka Somaliland oo wax ka weydiinayno bal xaaladdu halkay ku dambeyn karto iyo rabshadahan sii socda waxa ay gunaanadkooda noqon doonaan professor ku soo dhaw marka hore Ariel TV ilaa hadda sidee u socdaan Shimali aad baad mahadsantihiin baada Arielna waan runtii ku mahadsanyiin inagu marti qaadeen maanta telefishinka Ariel runtii arrintan wadanka Mareykanka ka dhacday imika maanta maalintii 10aad soconaysa waxa ay ka dhalatay fal bahalnimo ah oo ay geysteen ciidamada booliiska wadankaasi laakiin dadkii ayaa waxay noqdeen dad aad u gadoodsan oo caro la diga ah dadkaas oo diidan falkan oo kaliya maaha laakiin waxay diidan yihiin arrinta ay keeni karto falkan oo ah cunsuriyad ama inay dadku u kala qaybsamaan laba jinsiyadood oo madow iyo cadaan ah taas oo khatar weyn ku ah dalka Mareykanka sida la ogyahay wadanka Mareykanka waxa jira hubka ayaa dadka shicibka ah gacantooda ku jira taasina hadii ay abuuranto in la kala aargoosto oo midab iyo isir ay u kala noqoto waxay ku keeni kartaa wadanka Mareykanka khatar weyn ay ku keeni kartaa taasi marka waa qodobka ugu muhiimsan ee runtii iminka dadkani ay caradan faraha badan leh ay sii wadaan rabshadaha waxa socotay in ay culays badan saareen guriga cad ee Mareykanka oo ay halkaas keeneen dabeetana madaxweynaha Mareykanka uu isna ku hanjabay in uu ciidamada maxay gaarka ah commandosta uu dalka soo gelin doono meedaanka taas runtii waxay keentay in ay ku kala qaybsamaan maxay siyaasiyiintii iyo ciidamadii militariga waxaana laba loo khilaafkaasi imika haatan isagoo weyn oo waliba dibadda u soo baxay uu ka jira guriga cad iyo Pentagonka oo wasaaradda gaashaandhigga ay tahay marka runtii arrintaasi ciidankaas faraha badan la keenay inay xakameeyaan dadkan gadoodsan ee ka cadhaysan qadiyadan waxa uu u cuskaday madaxweyne Trump inuu yahay qodob dastuuri taas oo ay dad badan ay diideen ka soo horjeedaan hadiiba even uu keeno madaxweynuhu ciidamadan maxaa dhilan kara karto ciidamada hortu marka ugu horeysaba ciidamada Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka way diidan yihiin in ciidamada militariga iyo ciidamada gaarka ah loogu talagalay in hadii falaaga ka dilaacdo wadanka dastuurku u ogolaaday inay soo gali karaan oo soo fargelin karaan in dad shiciba oo si nabadgelyo u mudaharaadaya oo wax codsanaya ay ku weeraraan oo ay ku difaacaan taas way diidan yihiin waxa kale oo ay arrintaasi ay kale oo keentay culays kale oo ah oo dhigaya in ciidankii uu siyaasadii daraf ka noqdo taas oo aan dhaqanka Mareykankana aad looga aqoon marka si uu Trump u sii xajisto kursiga badbaadada waayo wax maanta laga yara durkiyay maxay tahay wadadii weyneed ee hareynaysa guriga cad ee Mareykanka dadkii waa laga yara durkiyay sidoo kale maxay tahay beerta Lafayette leedahay ku dhow oo markii hore oo beertaba ay saaran tahay gurigana waa dadkii way ka baxeen marka maanta wadadu waxaad moodaysaa inay ka yara dabacsaneyd sidii hore laakiin arrintan waxay u eg tahay dadkani ma rabaan oo kaliya in ninkii booliiska ahaa dilay ninka in la dilo oo kaliya ma rabaan waxay rabaan wax ka ballaaran habka ay u mudaharaadayaan waa hab ilbaxnimo ah oo runtii ay tahay in laga barto maxay ahayd dalalka Afrika ee ka soo qaatay dimuqraadiyaddu hanaanka dimuqraadiyaddu waa inay bartaan markii mudaharaadayno inagu waa inay qof ma jirto 9 maalmood ama 10 maalmood oo si wada jira loo sii wada karayo maxay ahayd marka taasina waxay u baahan tahay iyadana lafteeda in duruus laga qaato laga barto wahagaag maxay tahay marka maxay ku dambeyn karaan hadda wadarta mudaharaadku sii socdaan madaxweynuhu wuxuu ku adkeysanayaa in ciidamada la keeno inkastoo ciidamadii aanay wali ogolaansho bixin
maxay ku dambeyn kartaa xaaladda dalka Mareykanka? arrintan waxay ku dambeynaysaa laba arrimood labadaba. horta midda koowaad waxa doorasho election baa socday. electionkaasi waxaa suurtagal ah in maanta Trump markii hore waxaa lagu waday in uu wareeg labaad kusoo noqdo. arrintani waxay iminka u qoysgoynaysaa in aanu Trump kusoo noqonin kursigii haddii aanu isaga laftiisuba aanu maxay tahay halis kale kusii gelin oo kiisas kale lasii daba qaadin. waa qodobka labaad, dadkan gadoodsan ee cadhaysan waxa ay aad ugu halgamayaan sidii loo sameyn lahaa xeerar xakameeya ciidamadan blaiska ee sida bahalnimada ah dadka ula dhaqmaya. gaas ha ku buufiyaan, maxay tahay rasaasta rabarka ha la dhacaan, mararka qaarkoodna sidan bay u dilaan. marka wax xeerar ka xakameeya oo dadka rayidka ah ee maxay tahay boolisku ay la macaamilayaan ka xakameeya in ay ka soo baxdo oo uu noqdo xeer ay ummaddu ku nabad gasho oo ku ammaan hesho inuu ka dhasho ayaa gadoodkan laga yaabaa. dadkana waxay u eg tahay inaanay joojinahayn maxay ahatay tabashada buuqa ah ee cadhada wadata ee ay wadaan ilaa ay ku sanduleeyaan xukuumadda Mareykanka hogaaminaysa in laga fikiro sidii loo abuuri lahaa xeer maxay ahatay ka badbaadiya booliisku inay ula dhaqmaan dadka rayidka qaabkan iminka ay ula dhaqmayaan. taasina waxa weeyaan waa hadaf runtii muhiima oo ay tahay in ummadaha iyo shucuubta kale ee ka qaatay dhaqanka dimuqraadiga inay ka bartaan oo xukuumadaha lagu barashar gareeyo in ay waxa ay dadka muwaadiniinta danta u ah inay fuliyaan. Professor, arrintan ma u arkaan kartaa kacdoonkii ka dhacday carabta oo kale oo America oo kale qaaradaas oo dhan saameyn kartaa bay kula tahay? iminkaba marka la eego mudaharaadyadii hore berigii hore ka dhici jiray xidhiidh kala lahaan jiray falalka sidan oo kale ah waxay ka dhici jireen gobollo yaroo xadidan oo waddanka Mareykanka. laakiin iminka way ka ballaadhantay gobollada Mareykanka ay ka dhaceen ama ay maxay ahaatay mudaharaadyadani ay maxay tahay ka taagan yihiin. laakiin waxay kaga duwan yihiin dalalka carbeed may ku nooleen nidaam dimuqraadiya oo qofku uu codkiisa masiirka gacantiisa kuma jirin oo kuma u bedeli karin ee dictatoria oo 30 sanadood iyo 20 sanadood ama dad dastuurka maxay tahay oo fureemaya oo dastuurka siday doonaan ugu tumanaya ayaa haystay. saas aawadeed cadhada dadka maxay tahay gugii la odhan jiray carabtu wuu ka xoog badnaa waanu ka duwanaa kan. laakiin dadkani waa dad maxay tahay dhinaca ilbaxnimada iyo dhinaca shuruucda inta badan xoog saaraya. wuu ku baahayaa gobollo badan ama isteedyo badan oo Mareykanka, laakiin ujeedadiisu ma aha in ay xukuumadda oo keliya waayo sababtoo waxa la baray dhaqan ah in qofku meesha kaliya ku aarsan kara ay tahay codkiisa. doorashada soo socota haddii aad diidan tahay xisbigan iyo siyaasadiisa waxaad ku bedeli kartaa codkaaga. marka way sahlantahay. laakiin ujeedada iminkan ay dadkani aadka ugu hawlan yihiin waxa weeye xisbi kasta ha yimaado xukuumadda oo kursiga ha soo gaadho, laakiin booliiskan wax ka xakameeya oo xeerar ka dabra in loo sameeyo oo anshaxan iyo dhaqankan uu la dhaqmayo booliisku bedela. taasaana ugu muhiimsan intay ay samayn doonaan. aad baad mahadsantahay. Thank you very much.